kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa garoonka injineeridiisa degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir waxaad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka weyn ee u dhaxeeya kooxaha kubadda cagta geeska Afrika iyo dekedaha horyaalka Somali Premier League. Richard waa paasay Malik Richard ayaa kubadda haysta Abbas Rafael afkore goolka Rafael wala saaray kubadaasi gool ayaa way saameeyay alla ayaa kubadaasi saaray Abbas ayaa u soo baasay Rafael waa qaatay darbadii uu gool ku tuuranay waxa saaray gool ayaa kooxda geeska Afrika Rafael iyo Idris Amin midkood ayaa tuuri doonaan Rafael bananka Pulisiyonkii uu tuuray Rafael goolku waa u geesbariyay horyaalka Soomaaliya dekedeeda mana ka soo badisay gaadiidkii barajla soo galeen Pulisiyonkii Rafael uu tuuray goolku waa geesbariyay Idris golay xasiyay oo la ciyaaray Meechal ayaa kubadda la gaarsiiyay Meechal waa kan Malik kubaddaasi waa laga qaatay meel fiican waa kan Nagaye maysan noqon kubaddaasi koona Daoud Abdullahi Tuwal ayaa kubadda haysta Tuwal kubadda waa u soo tuuray meel fiican waa kan Richard Tuwal laga soo saaray kubaddaasi Rafael ayaa kubadda haysta Rafael awali waa laga soo saaray isagana way iska soo saareen ciyaartooyda kooxda geeska Afrika horyaalka ay ku guuleysatay sanadkii la soo dhaafay si lama filaan ay ku galeen kaalinta labaad ee horyaalka waa la soo tuuray kubadda markan waa kan Rafael bananka gadaal ayaa kubadda loo furay Malik Daoud Tuwal kubadda waa u soo tuuray waa kan Malik Richard maysan noqon kubaddaasi birta ayaa ka beenisay Richard ayaa soo martay fursad daabi Abbas Amin wali Abbas bananka ayaa kubaddaasi aaday Richard ayaa Daoud Tuwal la ciyaaray Daoud ayaa soo tuuray Daadir Jalla Malik Richard ayaa kubaddaas tuuray birta ayaa ka beenisay dhaxday Rafael ayaa kubad ka qabsaday Rafael soo tuuray kubadda waa kan Richard afkore goolka Richard gool ayaa way sameynaya sheekadaasi deeday MCC guul dara kala soo kulantay Jayne barbarac soo galeen waa kan Richard isaga kubadda haysta waa kan Richard waa la soo ordhay kubaddaasi Daoud Tuwal maysan noqon awali sala la soo ciyaaray u soo tuuray kubadda penalty rigore geeska Afrika penalty rigore ayaa laga dhigay kubadda awali ugu soo tuuray gacanta ay kaga dhacday mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika dekada ayaa lagu abaalmariyay penalty rigore ay helayaan ciyaartooyda kooxda dekada Abbas Amin ayaa qaadanaya awali la soo ciyaaray isaga ayaa kubadda dhex dhigay diilinta ganaaxa ayuu kubaddaasi cross dhex dhigay waxayse ku dhacday Abdulqaadir ciidanka lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika Richard ayaa la siiyay Richard waa dhariyay hoggaanku ay qabteen weelasha dekadaha Richard ayaa dhariyay goolkiisa ugu horeeyay xilli ciyaareedkan kooxda dekadaha sanadkiisa ugu horeeyay kooxdan u ciyaaraya penalty lagu abaalmariyay kooxda kubadda cagta ee dekadaha isaga ayaa gool u bedelay Richard lambarka 9 weeriyaanka kooxda dekadaha gool iyo bare ciyaartu noqotay waa uu soo taagsaday wuxuu adeegsaday awoodiisa kiis ayuu ka dhigay inkastoo uu raacay gool ayaa way sameeyeen sanadkii la soo dhaafay kaalinta labaad ay galeen Richard ayaa dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay ee kooxda dekadaha waana penalty kiis ayuu ka dhigay waneel ay ciyaartu noqotay oo way sameeyeen si qabsaday kubaddaasi
qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa sidaa ku soo ilaatay gool iyo eber ayaa lagu kala nasanayaa dekada ayaa ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee geeska afrika ayaa lagu hogaaminayaa baaska qaybta labaad ee ciyaarta geeska afrika muuse ayaa u sameeyey waa kan daawud tuwaal garabkee taallaa markan aweli afkare goolka aweli waa kan richard waa khasaariyey aweli ayaa kubaddaasi soo jiiday soo galay waa uu qabtay waa uu baasay dhowr jeer ayuu waabiyey richard goolka ugu dambeyntii waa uu kormariyey rafael isagaa kubadda haysta weli rafael weli gool hayaha soo saaray kubaddaasi rashka kubadda waa uu soo tuuray ugu dambeyntii golaya xasan maxamed ibraahim ayaa kubaddaasi qabsaday waa kan richard daadir jalla waa la soo tuuray kubadda muxuddin waa uu soo tuuray daadir jalla tonel goolka labaad ee ciyaarta ayaa dhaliyeen ciyaartooyda kooxda dekadaha daadir jalla ayaa dhaliyey kubadu geeska keenay muxuddin aadamada ayaa goolkaasi caabiyey daadir xasan xaashi daadir jalla ayaa dhaliyey goolkiisa ugu horeeyey kooxda dekadda oo uu sanadkan qayb ka yahay jenya ayuu kooxdan kaga soo biiray sanadkii la soo dhaafay jenya ayuu ka tirsanaa iyo kii ka sii horeeyaba daadir xasan xaashi daadir jalla isaga ayaa kubadda dhowr ciyaartooy dhex maray cabbaas amiin ayaa la soo ciyaaray muxuddin ayaa kubaddaasi bannaanka dhigay waxaase ku taabtay nageeyo deeqo birta koona ayaa la leeyahay geeska laad ama koona geeska afrika ayaa soo samaynaysa daadir jalla duulaan daadir waa kan kabtan cabbaas amiin cabbaas waa kan isxaaq waa khasaariyey rafael meel fiican aweli 3 gool iyo eber cabdi weli ayaa dhaliyey goolka saddexaad ee ciyaarta cabdi weli cabdiraxmaan maxamed aweli ayaa dhaliyey kubad rafaa'il ayaa u dhex bixiyey haddii siid calibaana uusan weligiis gool dhalin aweli wuxuu fariin u dirayaa difaacyada aan shabaqa dariska lahayn sanadkii la soo dhaafay sidoo kale sidaas ayuu shabaq u gaaray aweli ayaa hobariiska yidhi 3 gool iyo eber isxaaq kabtan cabbaas amiin waa kan ciraanka yidhaahdo jalla daadir jallo waa laga saaray kubaddaasi gool ayaa weesaamaynaya ayaa kubaddaasi bannaanka u saaray cabbaas amiin kubadda waa uu soo tuuray waa kan jalla daadir jallo waa laga saaray kubaddaasi hal gacan ayaa looga saaray gol ayaa kooxda geeska afrika aweesaamaynaya ayaa kubaddaasi bannaanku saaray jalla ayaa kubaddaasi ku dhex qaatay kabtan cabbaas amiin ayaa meel kor dheer ka arkay isaga ayaa kubadda soo tuuray madax ayuu ku sii qaatay hal gacan ayuu ku saaray gol ayaa aweesamiin haleeso goolkii afaraad ayay ku sigteen ciyaartooyda kooxda dekadaha laakiin maysan noqon waa la soo tuuray kubadda markan gool ayaa casey ayaa kubaddaasi saaray rashka ayaa kubadda masaafo dheer ka soo tuuray laakiin gool ayaa casey goolayaha kooxda kubadda cagta ee dekadaha ayaa saaray rashka ayaa dhexda ka soo tuuray bannaankuu isaga saaray meel fiican markan ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay 3 gool iyo eberna waxaa ku adkaadeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee dekadaha
waxaa laga adkaaday kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika